Hormuud Salaam Foundation waxa ay ka fulisaa dhammaan gobolada dalka iyo magaalooyinka barnaamij maalgelineed oo bilaash ah. maalgelintaas oo la siiyo ganacsatada danta yar si gaar ah dumarka. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxa ay ganacsatada yaryar ku maalgelisay in ka badan 1 milyan oo dollar. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation si ay u sii dardargeliso shaqo abuurka iyadoo oo kaashanaysa shirkadaha ka howlgala logistikada ee Rakaab waxay sanadkan 2022 ka bilowday barnaamij shaqo abuur ah oo 1,000 qof loogu abuurayo shaqo. barnaamijkaas wuxuu socon doonaa dhowr sano waxaana ka faa'iideysan doona dhalinyarada dalka. dhammaan barnaamijyada shaqo abuurka ah ee Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ay bixiso waa kuwa qeyri ah oo aanay hay'addu ka raadineynin wax macaash ah. sidoo kale Hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxa ay arrimaha shaqo abuurka dhalinyarada kala shaqeysaa shirkadaha maxalliga ah iyo hay'adaha barnaamijyadaasi sida barnaamijyada xirfadaha qaar sida dhartolida. hay'addu waxa ay kaloo ay ku howlan tahay diyaarinta akademiyada lagu barto culuumta kombiyuutarka ee casriga ah sida programming iyo creative designing.